dhimashadii madaxweynaha ee ay militarigu sheegeen waxaa hareeyay mugdi aad u fara badan. waxaa la isweydiiyey boqolaal su'aalood oo aan wax jawaab ah loo hayn. su'aalahaas aan wax jawaab ah loo hayn waxaa ka mid ahaa maxaa loo sheegi waayey dhimashada mid ama laba ka mid ah taliyaashii sarsare ee ciidanka hogaaminayay. yacni haddii meesha uu ka dhacay dagaal aad u weyn oo ilaa madaxweynihii qaranku uu ku dhintay oo dagaal lagu hoogay oo lagu baayo meesha ka dhacay, muxuu u dhiman waayey mid ama laba ka mid ah taliyaashii sarsare ee ciidanka watay? saaxiibayaal soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad. waa barnaamijkeenii asbuuclaha ee aan hadba mowduuca uga hadli jirnay. isbuucan mowduucan uga hadleyno waxa weeye madaxweynihii waddanka Chad Idris Deby ee la dilay 2 beri ka hor isaga oo jooga furimaha hore ee dagaalka. sidee ayay wax u dhaceen? yaa dilay madaxweynaha? maxaa furimaha hore ee dagaalka ee xabadu ka socoto madaxweynaha geeyay? arrimahaas oo dhan waxaan uga hadleynaa saaxiibayaal xalqadeena. intaan xalqada guda gelin saaxiibayaal waxaan si xushmad iyo qadarin ku jirto idinka codsanaya in haddii aad kanaalka hore u taxnaydeen aad like dhac igu siisaan, haddii aad hadda ku cusub tihiin in aad like iyo subscribe ba ii saartaan si ay idin soo gaaraan xalqadaha kale ee asbuuclaha ah ee aan kanaalkayga kusoo gudbino. inta aan guda gelin dhimashada madaxweynaha aan wax yar isweydiino, Idris Deby madaxweynihii waddanka Chad yuu ahaa. madaxweyne Idris Deby madaxweynihii waddanka Chad ee 2 beri ka hor la dilay sanadkii 1952 ayuu wuxuu ku dhashay waddanka Chad goboladiisa bari. yaraantiisa ayuu wuxuu ku biiray ciidamada, wuxuu ahaa askari aad u firfircoon. fursad ayuu u helay in tababar loogu qaado waddanka Faransiiska 70meeyada qarnigana dhaafay. 1978 ayuu soo dhameystay tababarkii wuxuuna dib ugu soo noqday waddankiisii Chad. 1982 ayuu madaxweyne Idris Deby waxa uu ku biiray koox mucaarad oo ka soo horjeeday madaxweynihii waddankaas xilliga Chad haystay oo magaciisa la oran jiray Wadi. 1989 ayuu madaxweyne Idris Deby wuxuu iskaga baxsaday waddankiisii Chad wuxuuna u baxsaday waddanka Suudaan kadib markii lagu eedeeyay in uu abaabulayo isku day military oo afgambiya oo uu rabo inuu talada waddanka kula wareego. laakiin sanad kadib ayuu waddanka Suudaan wuxuu ka soo qaaday weerar muddo 3 asbuuc ah oo uu weerar ku hayay waddanka Chad iyo maamulkii haystay. asaga ayaa taladii waddanka xoog kula wareegay. madaxweynihii ka horreeyayna wuxuu ku khasbay in waddanka laga masaafuriyo oo waddanka dibadda uga baxo. sanadkii 1996 ayaa doorashadii ugu horreysay ee waddankaas ka dhacday uu ku guuleystay madaxweyne Idris Deby. doorashadii sanadkii 1996 ka dhacday waddanka Chad waxaa lagu tiriyaa in ay ahayd doorashadii ugu horreysay oo xisbiyaal kala duwan oo waddanka ka mid ah ay ka qayb galeen. haddana mar labaad ayuu waddanka madaxweyne ka noqday 2001. 2005 ayuu isbedel ku sameeyay dastuurka waddankaas si ay ugu suurto gasho in uu mar saddexaad is-sharaxo. wuu is-sharaxay 2006 asaga ayaa madaxweyne kusoo baxay. yacni ilaa sanadkii 1996 isaga ayaa doorashooyinka qabsanayay, isaga ayaana kusoo baxayay. madaxweyne Idris Deby waxaa lagu tirin jiray inuu ahaa nin aad u istiraatiijiyad badan oo majaalka ciidamada aad uga horeeya. madaxweyne Idris Deby marar badan ayuu wuxuu fashiliyay isku dayo afgambi iyo kacdoonno asaga looga soo horjeeday oo xilka looga tuuri lahaa. maalinnimadii isniinta ay asbuucana ku jirno ayaa madaxweyne Idris Deby waxaa loo doortay markiisii 6aad madaxweynaha waddanka Chad, taas oo ka dhigan oo macnaheedu tahay inuu waddankaas madaxweyne ka ahaa 30 sano wax ka badan. 30 sano wax ka badan ayuu waddanka madaxweyne ka ahaa. dhanka kale maalinnimadii sabtida ahayd ee maalinnimadii isniinta ee asbuucan kasii horreysay ayaa kooxo mucaarad oo hubeysan magaalada N'Djamena ee caasimadda waddanka Chad waxay ku soo qaadeen weerar iyagoo sheegay in ay diidan yihiin doorashadan uu qabsaday madaxweyne Idris Deby, laan og yahay in uu isagu ku soo baxayo doorashadaas ayaan ka hortagayna ayay yiraahdeen. weerar baan ay caasimadda ku soo qaadeen. sida ay ku warantay wakaaladda wararka Reuters, kooxihii weerarka soo qaaday ee mucaaradka hubeysan ahaa waxaa laga dilay ilaa iyo 300 oo dagaalyahan, waxaana laga qabtay oo maxbuusaan looga qabtay ilaa iyo 150 dagaalyahan, halka 5 askari laga dilay ciidamada dawladda, 36 kalena lagu dhaawacay. waa sida ay ku soo warantay wakaaladda wararka ee Reuters. intaas wixii ka dambeeyay madaxweynaha markii maalinimada isniinta ahayd dib loo doortay caasimadda N'Djamena uu iskaga baxay wuxuuna kormeer ku aaday ciidamadii furimaha hore iyo jiidda hore kula dagaalamayay kooxihii mucaaradka ahaa ee caasimadda soo weeraray. madaxweyne Idris Deby ayaa waxaa lagu yaqaanay in uu tago furimaha hore ee ciidamadiisu ay kula dagaalamayaan ciddii ka soo horjeeda. yacni inuu isagu lugihiisa ku tago. xataa marmar waxaa dhici jirtay inuu isagu hogaamiyo qayb ka mid ah ciidamada oo uu halkaa dagaalka si toos ah uga qayb qaato. laakiin maalinnimadii talaadada ahayd ayaa war la yaab leh ciidamada militariga waddanka soo saareen. waxay yiraahdeen madaxweynihii waddanku waxa uu ku dhintay dhaawac ka soo gaaray dagaalkaas. isla markiina waxay sheegeen in taladii waddanka lagu wareejiyay wiilkii uu dhalay madaxweynuhu waa Maxamed Idris Deby.
waxayna sheegeen waddanka in 18 bilood kadib doorasho ay u dareeri doonaan muwaadiniinta waddankaas waxayna sheegeen in dhammaan cir iyo dhul iyo xuduudihii waddanka la wada xiray waxayna sheegeen in 6 maqribnimo wixii ka dambeeyay cidna ay socon karin oo waddanka bandow lagu soo rogay yacni waddankii wuxuu galay xaalad adag dhimashadii madaxweynaha ee ay militarigu sheegeen waxaa hareeyay mugdi aad u fara badan waxaa la isweydiiyey boqolaal su'aalood oo aan wax jawaab ah loo hayn su'aalahaas aan wax jawaab ah loo hayn waxaa ka mid ahaa maxaa loo sheegi waayey dhimashada mid ama laba ka mid ah taliyaashii sarsare ee ciidanka hogaaminayay yacni haddii meesha uu ka dhacay dagaal aad u weyn oo ilaa madaxweynihii qaranku uu ku dhintay oo dagaal lagu hoogay oo lagu baayo meesha ka dhacay muxuu u dhiman waayey mid ama laba ka mid ah taliyaashii sarsare ee ciidanka watay yacni madaxweynaha ilaa wuxuu leeyahay ilaaliyaal wixii dhan haddii lasoo jabsaday oo madaxweynaha ilaa wiifto iskagama dhicin soo dhacday muxuu u dhiman waayey mid ama laba ka mid ah taliyaashii sarsare ee ciidanka watay isla markiiba dadka siyaasadda falanqeeya iyo warbaahintuba waxa ay sheegeen 3 ixtimaalaad oo ay qiyaaseen in madaxweynuhu u dhintay oo sida militariga uu sheegayo ka duwan waa 3 ixtimaal oo la sheegay ilaa iyo haddeertaan dhimashada madaxweynaha mugdi ayaa ka jira laakiin 3 ixtimaal oo waxa la sheegay uu madaxweynuhu u dhintay maadaama dhimashada militarigu ay sheegeen su'aalo badan la iska weydiiyey tan koowaad waxaa la yidhi waxaa laga yaabaa madaxweynaha in uu dilay mid ka mida ilaaliyaashiisii shakhsiga ahaa maadaama ciidamada waddankaas ay ku badan yihiin askar badan oo kasoo jeeda qabaa'ilada kasoo jeeda waqooyiga waddanka qabaa'iladaasna qayb badan oo ka mid ah waxay ku kacsan tahay madaxweynaha iyo dowladaba marka waxaa laga yaabaa mid ka mid ah askartii waddanka ee ilaalada madaxweynaha ka mid ahaa ee qabaa'ilka waqooyi ee waddankaas kasoo jeeda ee dowladda ku kacsan in uu dilay ixtimaalka iyo qiyaasta labaad ee ay sheegayaan dadka siyaasadda lafagura iyo warbaahintu ee ay leeyihiin madaxweynuhu inuu u dhintay ayaa laga yaabaa markii laga tago warka rasmiga ah ee aan lagu kalsooneyn ee militariga waddankaas soo saaray ee ahaa madaxweynihii waa u dhaawacma dagaalkaas ayuuna ku dhinta waxay leeyihiin waxaa laga yaabaa in dad madaxweynaha u dhow ay madaxweynaha dileen oo madaxweynaha dilkiisaba laga soo abaabulay madaxtooyada tusaale ahaan waxay leeyihiin madaxweynaha ayaa waxa lagu yaqaanay in uu tago furimaha hore ee dagaalku ay ka socdaan marka dadkan madaxweynaha u dhow gadaal ka fadhiya waxa ay fursad ka dhex arkeen in ay madaxweynaha ku khaarijiyaan furimaha hore ee dagaalka marka uu tago dadka iyo adduunyadana loo sheego in madaxweynaha maadaama horey looga bartay in uu furimaha hore ee dagaalka tago in madaxweynihii ay xabad ku dhacday dabadeedna halkaas uu dhaawacii ugu dhintay waxa ay saa u sameeyeen ayaa leeyahay kooxdan dambe waa haddii ay qiyaastaan run noqotee in aysan ku dhici karin in ay si toosa u afgembiyaan ninkan maadaama uu yahay nin aad u digtoon majaalka ciidamadana aad uga horeeya oo aan si fudud loo afgembiye karin iyadana waxaa jirta ixtimaal iyo qiyaas saddexaad oo ay sameynayaan warbaahinta iyo dadka siyaasadda falanqeeya waxayna leeyihiin ixtimaalkaas ma ahan ixtimaal aad u xoog weyn laakiin waxaa laga yaabaa in wiilka madaxweynaha maxamed idriis deebi uu damcay inuu aabihiis isagu afgembiyo maadaama uu wiilkan ciidan watay aabihiisna uu ciidan watay labadii ciidan ay isku dhaceen odaygiina halkaa uu ku dhintay laakiin qodobkan qodob lagu adag ku taagan ma aha dhimashada madaxweynaha ayaa asbuucan warbaahinta caalamku si aad uga hadlaysay iyadoo aad loola yaabanaa in waddan dhan madaxweynihiis uu jiidda hore ee dagaalka ku dhintay weliba uu u dhintay dhaawac ka soo gaaray dagaalkii تساؤل آخر يطرح بعد مقتل إدريس ديبي رئيس تشاد. من قتل الرئيس التشادي إدريس ديبي وكيف؟ عنوان لتقرير لموقع مينا ديفونس. الموقع تطرق إلى بيان الجيش الذي قال فيه أن ديبي madaxweyne Idris Deby ayaa wuxuu noqonayaa madaxweynihii 19aad ee qaaradda Afrika isagoo xilka haya lagu dilo xilkii uu hayay horey ayaa wax loo dilay madaxweynayaal aad fara badan isaga ayaa ku noqonaya 19 madaxweynayaasha waxaa kamid ahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdirashiid Cali Sharmaake waxaa kamid ah Cali Cabdalla Saalix Yemen waxaa kamid ah Muammar al-Qadaafi Liibiya iyo kuwo kale oo aad u fara badan saaxiibaya barnaamijkeena asbuuclaha intaas ayaan ku soo koobaynaa waxaana mar labaad iyo mar saddexaad si xushmad iyo qadarin ku jirto idinka codsanaya haddii aad kanaalka yaga horay ugu taxnayd fadlan like saar haddii aad hadda ku cusub tahayna like iyo subscribe noo saar si ay dhiirigelin loogu noqoto adna ay kuu soo gaaraan xalqad kasta ee asbuuc walba soo dhacda waa mahadsantihiin guuleysta